wardegdega ugu dambayn waxaa maanta la xaqiijiyay geerida ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya ahaana hogaamiyihii xisbiga mucaaradka ee ODM Raila Odinga maalmihii ugu dambeysay hadalhayntiisu way taagnayd dalka dibadiisa ayuuna caafimaad ugu maqnaa warbaahinta gudaha ama dadka social media aad u isticmaala dhowrkii maalin ee ugu dambeeyayba waxay soo dhigayeen inuu geeriyooday balse dhinaca dawladda iyo sidoo kale wadankii uu ku sugnaaba xaqiiqo lagama haynin ugu dambayn maanta ayaa la shaaciyay haddaba waxaan dul istaagi doonaa hogaamiyahan taariikhdiisa kooban xilalka uu soo qabtay saamaynta uu geeska Afrika ku lahaa sida ay Soomaalida dalka Kenya ay u saameynayso ama saamaynta ay ku yeelanayso siyaasiyiinta dalka Kenya oo lagu tiriyo inay boqolkiiba in ka badan 80 ay ahaayeen mucaarad ka tirsan xisbigiisa saamaynta guud ee geeska Afrika iyo sida looga dareemayo geeridiisa Odinga dadka ama qowmiyadda uu ka soo jeedo oo ayada naftirkeeda maanta ay uga dhigan tahay gabal madow iyo cidda ay markaas leeyihiin way bedeli doontaa xukuumadda Ruto iyo sida ay u wajahayso geerida Odinga madaxweynaha dalka Kenya Ruto iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kaleba oo gaaray qoyska halka uu ka degayo qoyskiisa magaalada Nairobi baroordiiq ka socota magaalada Nairobi iyo sidoo kale dadka isku soo baxay oo aad iyo aad uga murugaysan geerida Odinga ayaa soo qaadan doona hadduu Allah idmo soo dhawaada muuqaalka like saar aragtida inay gula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay waxa maanta la xaqiijiyay geerida hogaamiyihii ururka ama xisbiga mucaaradka ODM horeyna u soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Kenya 2008 ilaa 2013 intaas ayuu ra'iisul wasaare dalka Kenya waxa kadib markii ay si weyn isku qabteen madaxweynihii markaas ku soo baxay kursiga dhexaadin ay reer galbeedka iyo sidoo kale dawlado badan ay sameeyeen ayaana Odinga loogu dhiibay ra'iisul wasaare markaasoo kaliya ay Kenya soo yeelatay ra'iisul wasaare isaga ayaana lagu qancinayay markii dambana systemkii caadiga ahaa ee dalka Kenya uu ku socday madaxweynaha ku xigeen ayaa lagu sii socday Odinga maalmihii ugu dambeeyayba waxa uu ku maqnaa oo dalka dibadiisa ugu maqnaa caafimaad arrimo caafimaad ayuu ku maqnaa wadnaha ayaa laga ataago ka xanuunsanaa isbitaal ayuuna ku jiray dhowrkii asbuuci ugu dambeeyay social media ayaa dhowr jeer lagu baahiyay inuu geeriyooday balse dawladda iyo sidoo kale goobihii caafimaad ee uu ku sugnaaba xaqiiqo lagama hayno ugu dambayn saaka ayaa baraha bulshada qabsatay geeridiisa iyadoo ugu dambayna dawladda Kenya ay xaqiijisay madaxda dalka Kenya ay tacsi ugu tageen qoyska uu ka tagay Raila Odinga ama qoyskiisa ay markaasi tacsi ugu tageen waxa dhinaca kale ka soo tacsiyay mas'uuliyiin fara badan oo ay kamid yihiin Prime Ministerka dalka Hindiya madaxweynaha dalka Djibouti iyo madax badan oo markaasi caalamka ayaa ka soo tacsiyay oo arintaasi waxa way geerida ku timid Odinga ka hadlay waxa dhanka kale magaalada Nairobi ka socda baroordiiq aad u xoogan ayaa ka socota waxay leeyihiin shacabku gabal madow baa noo dhacay hoog baa noo galay baaba haduu naga tagay ayaa la inta badan dibadbaxyada amaba dadka soo baxay markaasi baroordiiqda wada waxay ay ka socdaan dhinacan Langata oo waqtigiisa inta badan Raila uu ku noolaa waa meelaha dadka taageera ay ugu badan yihiin Nairobi markii la yiraahdo ay degan yihiin ama family-giisa qoyskiisa ayaa degan baa la leeyahay marka xabaalaha ama qubuuraha Langata iyo aagaas iyo wixii xaafadahan Kibera iyo dhinacan townka wixii soo xiga ayay aad u degan yihiin waxa leeyahay marka dad aad u tiro badan baa soo baxo waxay leeyihiin gabal madow baa noo dhacay hoog baa noo galay baaba haduu naga tagay ayay leeyihiin Raila waa nin siyaasi ah oo waliba Kenya waxa la leeyahay siyaasadeeda iyo sidoo kale istiraatiijiyada ay ku shaqeysaba qaybta ugu weyn ayuu ka soo qaatay waa nin waqti badan geliyay siyaasadda dalka Kenya waxa leeyahay sharciyada iyo sidoo kale dokumentiyada inta badan iyo hanaanka loo shaqeeyaba qaybo badan ee casriga waliba qaybo badan oo kamid ah isaga ayaa maskaxdeeda lahaa nin aqoonyahana oo aad iyo aad u maskax badan ayuu ahaa Raila sida mas'uuliyiintu inta badan ay tilmaamayaan 80 jir buu ahaa waqtigiisana siyaasad geliyay intii badnayd siyaasad ayuu ku soo jiray Raila Odinga
ugu dambeyn waa geeriyooday arrimaha marka la isweydiin baa waxay tahay saameyn intee dhanbay kenyaanka ku yeelanayaan hadday noqoto soomaalida hadday noqoto kenyada kaleeto weliba siyaasiyiinta sidee ayay u saameyn kartaa ayayse si toosa u saameynaysaa baa la leeyahay dadka la soo qaadanayo ee warbaahintu ay soo qaadanayso waxaa ka mid a dhinaca soomaalida markaan eegno maxamed juneed baa ka mid a oo soomaali ah gacantii midig ee Raila ayuu ahaa Raila ayaa ka dhigtay gacantiisa midig ninka ugu dhow Soomaali iska daaya Kenyaanka dhan ninka ugu dhow ninkaas ahaa ay aad isku dhow yihiin waxa leeyahay marka maxamed juneed siyaasad ahaan saameyn xooggan bay ku keenaysaa sababtoo ah markii dowladda ay soo gasho oo Raila uu dhici jiray weligiiba uu dhaco siyaasiyiinta Soomaalida marka isagu gacanta soo qabsan jiray ee uu gorgortanka kula geli jiray xukuumadda soo gasho si marka waxooda banaanka loogu dhigo maxamed juneed baa ka mid ah marka juneed ayay aad u saameynaysaa rag badan oo kale taa jiray laakiin inta badan xukuumadda Ruto markay soo gashay waxay collation la samaysteen oo markaas ay waxa weeye ay ku biireen xukuumadda Ruto laakiin ninkan weli banaanka ayuu taagan yahay oo Raila gacantiisa midig ayuu weli ahaa waxa kaleeto iyadana ay saameyn badan ku keeni doontaa qowmiyadda jalwada oo Raila uu ka soo jeedo in badan uu dooday dadka isku horwadayna ay ahayd dibadbaxyada inta badan dhigahayay dalka Kenya markii la joogo markii systemka guud laga soo tago qowmiyad walba nin hogaamiyo oo isku horwaday leedahay qowmiyadda marka jalwada ninka koobaad labaad saddexaad afraad baad uu sii galeeyeen Raila Odinga buu ahaa isagoo duqa soo dhacay 10 jeer ka badan inta uu soo dhacayay kolba waxa weey laga guuleysanayay waa la iga shubtay dhahayay dagaalamayay mudaharaadayay dibadbaxayay hadarana wali isagii bay isku horwadeen marka iyagu marka waxay u tahay maalin ka duwan maalmaha ayay u tahay waliba waxay ka murugaysan yihiin geeridu de qof walba uu dhimanaya waxay aad uga murugaysan yihiin qofkii u bedeli lahaa booska u gali lahaa waxay leeyihiin kuwan jooga waxay bedelayaan ma jireen jalwo waa u dhamaatay jalwo siyaasad waa uga dhamaatay iyagu leeyihiin oo anaga siyaasad waa nooga dhamaatay bay leeyihiin si kastoo noqotoba madaxda dalka Kenya way booqdeen si degdeg ah ugu tageen qoyskii uu ka baxay Raila Odinga madaxweyne Ruto baa hogaaminayay dhinaca baarlamaanka naftirkooda 8 saac iyo bar ama labada maalinimo iyo bar ayay balansan yihiin in markaasi afayeenka baarlamaanka uu ka hadlo oo uu ogeysiiyo xaaladda Raila iyo sida laga yeelayo waxa dhinaca kale to iyadana socda diyaar garowga iyo sidoo kale to sidii aas weyn loogu sameyn lahaa aas qaran loogu sameyn lahaa Raila Odinga marxuum Raila Odinga si kastoo noqotaba ninkaas waa ku daayay Raila Odinga waa ku daayay xanuun wadnaha ku dhacay tiisina waa gashay waxa weeye dhaqaale uma waayin laakiin hadii naf yaa joojin kara naf ma la joojin kara naf lama joojin karo Raila Odinga waxaa lagu tiriyaa dadka ugu hantida badan dalka Kenya ee siyaasiyiinta lagu tiriyaa iyadoo sida ay tahay haddana Raila Odinga istaalka ugu qaalisana waa tagay caafimaadkiisa waa la tacaalay laakiin naf yaa joojin kara waa geeriyooday saameynta dalka marka la eego waxaa ka baxay siyaasi rugcadaa geeska Afrika oo dhan saameyn badan ku leh dalka Kenyana ay tabi doonaan baa ka baxay dhanka mucaaradada iyo dhanka muxaafidku wuxuu ku shaqeeyaa mucaaradku ku shaqeeyaa markuu mucaaradku xagga ka soo galo oo waxyaabaha waxa weeye ay marka madow ku jira banaanka keeno dad aqoon leh ay yihiin mucaaradku ay yihiin waxa weeye muxaafidku waxbay qabanayaan xukuumaddu waxbay qaban marka nin waxa baxay geesiya oo aqoon badan oo waxa weeye waliba maskax badan ayaa ka baxay maskaxdii dalka Kenya ayuu kamid ahaa baa leeyahay sida ay markaas qorayaan siyaasiyiinta politicianska warbaahinta la hadlay